السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صور وسحر قيم بدنو ما أنت واحد مرة دون إبوينا إذا كيس سيادو قرصنا الصور هذا فولدر هذا يفعلش هذا يا واحد السؤال دون إن لقى أركو waxaa mar ma doontaa in la saaxiibo kugu qaaliya kuwaas oo markaas kula isticmaal kombiyuutarkaaga lagana yaabo mararka qaar in kombiyuutarka ugu jiraan xog aad u muhiim ah taasoo aadan doonayn in la wadaagto qof aan adiga ahayn maanta waxaan isla eegi doonaa eeboweyna idankiis si aad u qarsan lahayd xog kasta oo ku muhiim ah taasoo aadan jeclayn in qof kale uu arko folderkan waxa ugu jira sawiradan ayaan doonayaa inaan qariyo oo aysan arkin cid aniga ahayn haddaba laba qab ayaan qarinayaa xogta aan doonayo inaan qariyo oo horeyntii kan ayaan doonayaa inaan qariyo right click ayaan oranayaa waxaan ka xulanayaa properties halkan ayaan waxa saarayaa saxda ay ku qoran tahay hidden markaan saxa saaro oo okay aan iraahdo sawirkan meesha uu ka baxay ay beedankiis سأوجد بصورك بابا قرصومي ضد لبعض waxaan doonayaa inaan sax saarayaa halkan view ka xulo halkan ay ku qoran tahay hidden select items ayaan click siinayaa sawirkeedo sawirkii meesha uu ka baxay haddaba marka u baahato inaad soo muujiso waxa maraysa laba wadada koobaad inaad view tagto halkan ay ku qoran tahay hidden items aad taado saxda سأوجد بواسهم مقدين بل سواها صار وري هايلات باسارن ودود لبعض بحتاج سها فايل وحكسر حولنا سها options وحكسر حولنا سها view هل كان يكون قرنتها هاي don't show hidden files folder أيا سها صار سما كقايسة حدي أنت سها صار don't show hidden files وحول بكمبيوتر كي يكون شراء ويقرصون هيان أو أمر كهر عن صوص سها صوص عرتي haddii aan show hidden ku dhuftana computerka wax ka soo ka qariyo waa soo muuqanayaan hadda waxa ay saaran show hidden maxaa yeelay marka hore ayaan soo muujiyay haddii aan gidigood qariyo view aan tago halkaan ka qaado hidden-ta gidigood waa ay qarsoomeen soo muujiyay waxaan tagayaa file waxaan ka dooranayaa options halkaan ayaa waxaan ka dhigayaa show سأوجد مركا أوكي أنا إذا دمانته ويصوم قنيان سأوجد بويصوم قدين لبدا قاب آيات حقت الله قرية الله نصوم وجيا waxaa filayaa waa soo fahamtay qaabka loo qoriyo sawirada waxyaabo la halmaara sidoo kale waxaan baran doonaa qaabka loo qoriyo folderka haddii folderkan ku jiro xog aad muhiim ah ana doonaysa inaad qoriso waxa dhaysa right click halkan soo waxa ka xulanaysaa properties halkan ku qoranta hidden ayaa sax saaraysaa markaan sax saaro okay aan iraahdo oo qarsoon doona folderkan ay beedankiis sawirada folderka waa qarsoomay haddaba waan qariyay folderkii saan u soo muujiyo waxaan tagayaa file explorer waxaan ka tagayaa file waxaan ka tagayaa options waxaan ka tagayaa view halkan ay ku qoran tahay show hidden ayaan sax saarayaa hadda folderkii waa soo laabanayaa سأوجد بفولدر كوصل لابت أواكن